dunida Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya. Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo isbuucii hore uu ku dhacay cudurka loo yaqaan COVID-19 ayaa weli ku jira isbitaalka oo xalay la seexiyay kadib markii ay la soo dirsay xumad aad u daran. xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in Mr Johnson loo qaaday isbitaalka si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo, iyadoo xafiisku soo kala sheegay in weli ra'iisul wasaaruhu uu si buuxda u maamulayo xukuumaddiisa. Ingiriiska ayaa ka mid ah wadamada uu xanuunka COVID-19 aadka u saameeyay, iyadoo xaddii dalkaasi uu soo wariyay in ka badan 600 oo qof oo u dhintay cudurka coronavirus. qaybaha kale ee Yurub ayaa muujiyay xoogaa horumar ah toddobaadyo kadib saameynta ba'an ee viruskani ku yeeshay dalalkaasi. Talyaaniga oo diiwaan geliyay dhimashada ugu badan ayaa soo wariyay kororkii ugu hooseeyay muddo 2 toddobaad ah, halka Spain ay sheegtay in tirada maalinlaha ah ee dhimashada iyo dadka uu cudurku soo ridanayaba ay hoos u dhaceen. dalka Mareykankana gobolada galbeedka ee Oregon iyo Washington ayaa sheegay in kumanaan qalabka caafimaadka ah ee sida weyn loogu baahan yahay ay u diri doonaan magaalada New York oo ah xudunta cudurka coronavirus ee dalka Mareykanka. qiyaastii 3 meelood meel ku dhawaad 10,000 ee qof ee coronavirus ugu geeriyootay dalka Mareykanka ayaa ku dhintay magaalada New York. qaybaha kale ee dalka oo ay ku jiraan gobolada Pennsylvania iyo Colorado ayaa laga walaacsan yahay kiisaska COVID-19 ee caasimada Mareykanka. magaaladan Washington ayaa haatan ka mid noqotay goobaha aadka uu cudurka coronavirus ugu sii badanayo, iyadoo caasimadu ay xaqiijisay qiyaastii 1,000 kiis oo coronavirus ah. ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ku dhawaaqay doona xaalad degdeg ah oo looga jawaabayo tirada sii kordhaysa ee dadka cudurka coronavirus ku dhacaya dalkaasi. go'aankan ayaa bari oo Talaado ah waxa uu ka dhaqan geli doonaa magaalada Tokyo iyo magaalada dekedda leh ee Osaka. go'aankan xaaladda degdega ah ayaa awood u siinaysa guddoomiyaasha gobolada inay amar ku siin karaan dadku inay guryaha joogaan isla markaasina ay xiri karaan iskuulada iyo ganacsiyada. ra'iisul wasaare Abe ayaa in muddo wuxuu ka cagajiidayay inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah, hase ahaatee waxay u muuqataa in tallaabadan uu qaatay kadib markii magaalada Tokyo ay soo warisay 143 kiis oo cusub oo coronavirus ah xaddii shalay, taasi oo ah tiradii ugu badneed ee maalin gudaheed dalkaasi laga xaqiijiyo. Japan ayaa diiwaan gelisay ilaa 3,500 oo kiis oo coronavirus ah, iyadoo dalkaasina uu cudurku ku dilay dad ka badan 70 qof. ugu yaraan 200,000 oo qof oo u dhashay dalka Afghanistan laakiin ku noolaa dalka Iran ayaa dib ugu soo noqonayay dalkooda toddobaadyadii la soo dhaafay, sidaasna waxaa baahisay wakaaladda wararka ee AP. Afghanistaniyiinta ku nool Iran ayaa isaga hayaamaya dalkan oo ka mid ah wadamada aadka u saameeyay cudurka coronavirus, iyagoo u laabanaya dalkooda oo aan u diyaarsanayn la tacaalida cudurkan. dadka Afghanistaniyiinta ah ee soo laabanaya ayaan la marsiinin wax baaris ah marka ay soo noqonayaan, taasi oo laga cabsi qabo inay abuurto khatar in cudurkaasi coronavirus uu ku baaho Afghanistan. saraakiisha Afghanistan ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in dowladda Iran ay ku khasabto ilaa 1 milyan oo qof oo Afghanistaniyiin ku nool Iran inay dalkaasi si khasab ah uga baxaan. Iran ayaa diiwaan gelisay ilaa 58,000 oo bukaan ah oo u helay cudurka coronavirus, halka Afghanistan ay xaqiijisay oo kaliya 367 kiis sida ay warinayso xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins.